waxa uu baalay in badankeena aynaan maqal shirkad lagu magacaabo BlackRock balse ma ka warhaysaa in shirkaddan ay tahay shirkadda ugu awoodda badan dunida oo dhan sidoo kalena ay maamusho lacag kor dhaafiya $10 trilyan maaha billions in ka badan wadamo badan GDP-gooda haddaba sidoo hal company awood u yeeshay inuu maamulo guud ahaan dhaqaalaha dunida oo dhan sidoo kalena uu go'aamiyo wax walba oo dunida ka dhacaya asagoona ay hoos yimaadaan dhammaan kambaniyada waaweyn ee aad taqaano iyo weliba sidoo kale warbaahinada caalamka oo dhan haddaba xaqiiqada kambanigan ayaa ah mid aad u qoto dheer iyo sababta uu kambanigan u yahay mid qarsoon sidoo kalena aadan weligaa hore u maqal BlackRock. I actually believe inflation will be abating very rapidly. haddaba shirkaddan lagu magacaabo BlackRock ayaa salaanteeda la aasaasay taariikhda markaad 1988 laakiin marka hore aan isleegin maskaxdii ka dambeysay BlackRock iyo sidoo kale aasaasay kambanigan haddaba aasaasaha kambanigan ayaa ninkan oo lagu magacaabo Lawrence Douglas Fink sidoo kalena loo yaqaan Larry Fink asagoona ninkan salaantiisa dhashay taariikhda markaad 2 November 1952 asagoona isla markaas ku dhashay magaalo lagu magacaabo Venice oo ka tirsan gobolka California Mareykanka waxay haataba Larry ayaa salaantiisa ka dhashay qoyska nool dabaqada dhexe ee wadankiisa ayadoona ay hooyadii ahayd professor luqadda Ingiriiska halka abiina uu lahaa dukaan sidoo kalena lagu iibiyo kabaha haddaba ninkan ayaa ka baxay jaamacadda lagu magacaabo UCL taariikhda markaad 1974 asagoona halkaas ka qaatay shahaadadiisa political science-ka dhanka kale ninkan ayaa ilaa yaraantiisaba ahaa mid u oomana awood iyo sidoo uu noqon lahaa mid dunida dhexdeeda magac ku leh waxay haataba noloshiisa intiisa hore ninkan ayaa ah mid dhaxkala siyaasadda iyo sidoo kale arrimahaas ilaa uu ugu dambeyntii ku baraarugay inaysan awoodda dhabta ku jirin siyaasadda sidoo kalena ay awoodda dhabta ay ku jirto lacagta isla markaasna uu qofka uu ka lacag badan yahay uu ka awood badan yahay haddaba ujeedadaas awgeed ninkan ayaa isla markii u bedeshay guud ahaan jihadiisii hore asagoona isla markaas aaday dhankii ay lacagtu ka jirtay ee ahayd bangiyada iyo sidoo kale real estate-ka haddaba waqtigiisii kollejka ninkan ayaa mar walba mid ka agdhawaada dadka hantiilayaasha iyo sidoo kale dadka awoodda leh midan oo u saashin waqtigaas uu ku biiray group lagu magacaabo Kappa Beta 5 groupkan oo isla markaas ah group qarsoodiya sidoo kalena ay ku jireen dad iyo waqtigaas awood leh midan oo isla markaas Larry u saashin inuu ka faa'iideysto xiriiradaas oo sameeyay waraantiiba asagoona xiriiradaas awgeed ku helay wadadiisii ugu horeysay uu qaadi lahaa mustaqbalkiisa asagoona halkii bilaabay inuu ka shaqo bilaabo bangi maalgashi isla markaasna lagu magacaabay First Boston asagoona bangigan u qaabilsanaa waaxda damaanadda ee bixisa deymaha haddaba waa meesha uu Larry ka bilaabi doono inuu saameyn ku yeesho caalamka dhaqaalaha waxay haataba waqti dheer ma aysan ku qaadanin Larry asagoona muddo yar gudaheed ba noqday mid ka mid ah shaqaalayaasha ugu mushaarka badan kambanigiisa asagoona sidoo kale waqtigaas soo xariinaya lacag gaadhay $1 bilyan asagoona sidaas ay tahay uu marba mar ka sii dambayso hore isu soconayay sidoo kalena ah mid marba mar ka sii dambaysa si fahmay ganacsiga iyo sidoo kale qaabka uu shaqeeyo maalgashigu asagoona ugu dambeyntii gaadhay heer uu ku dhawaadaba inuu la wareego guud ahaanba kambanigan sidoo kalena uu isku bedelay CEO-ga meeshan haddaba intaysan midaas dhicin ka hor waxaa dhacday in guulihii istabajooga isla muddo yar gudaheed bay isku bedelaan guuldarrooyin iyo sidoo kale khasaarooyin istabajooga ayadoona waqtigaas ay ninkan ku dhacday mid ka mid ah guuldarradiisii ugu weyneyd haddaba 1986 waxaa dhacday in ninkan hamiyadiisii iyo sidoo kale go'aanadiisii halisa ay u qaadanayay ay gaadhaan meeshii ugu sarreysay asagoona isla muddo bilo gudaheed buu ninka khasaariyay lacag gaadhay in ka badan $100 milyan lacagahaasuna ku khasaariyay tireedyadii halisa ee uu ku jiray midanoona isla markaas sababtay in dhammaan sumcadiisii oo sanadadaas oo dhan tacbay ay hal mar dhulka gasho heer lagu aamini waayaba inuu ka sii shaqeeyay kambanigiisa uu markaa ninka ugu wanaagsan ayadoona isla markaas lagu qasbanaaday in guud ahaan laga caydhiyaba kambaniga lagu magacaabay First Boston halkaasuna soo istaagay shaqalaan weliba asagoo aada 36 sano sida yaataba sida uu qof walba qiyaasanay ninkan ayaan haba yaraatay halkii isku dhiibin asagoona isla markaas guuldaradiisan ka qaadanay 10 buuxay iyo weliba sidoo kale dhiirigelin ah inuu hore u sii socdo halka dadka asaga la mid ay halkaas isku dhiibi lahaayeen haddaba waa markuu Larry bilaabay inuu la safto qaar ka mid ah tiimkiisii hore ee Kappa Beta 5 tiimkan oo isla markaas aad iskugu dhawaayeen ayadoona taariikhda markaad 1988 uu halkii ku dhashay kambaniga lagu magacaabay BlackRock haddaba waqti dheerba kama soo wareeganin asagoona isla muddo 5 sano gudaheedba uu kambaniga bilaabay inuu isla markiiba si degdeg ku weynaado asagoona muddo yarba kaga yimaada $500 milyan sidoo kalena isku bedelay boqortooyo kor dhaafay $8 bilyan dhanka kale intaas kadib ninka lagu magacaabo Larry ayaa isla markaas qaatay go'aanka ah in boqortooyadiisan aan gebi ahaanba lala maamulin sidoo kalena uu keligii boqor ka noqdo ayadoona sidaas ay u dhacdo uu bilaabay in ninkan uu ku qalqaaliyo ninkii ay soo wada saareen kambanigan in uu ka iibsado sheerkiisan ayadoona ugu dambeyntii taariikhda markaad 1995 uu ku cadaadiyay saaxiibkiisii inuu ka iibsado sheerkiisii asagoona kaga iibsaday lacag gaadhaysa $250 milyan waqtigaas ayadoona uu ugu dambeyntii ninkan si guud gacanta ugu dhigay kambaniga lagu magacaabay BlackRock haddaba saaxiibayaal intaan aan guda galin qaybta xigta fadlan ha ilaawin inaad nagu soo biirto sidoo kalena channelka subscribe saarato si aad isla markaas ula socoto muuqaalada xiisaha badan ee aan soo wadno sidoo kale ha ilaawin inaad muuqaalka like saarato aan u guda galno muuqaalkeena waxay yaato BlackRock ayaa intaas kadib noqday mid aan joogsi lahayn sidoo kalena mar ka sii dambaysa sii weynaada halka sidaas la mid ah Larry haamid ay awoodiisu asaguna sii korodho ayadoona sidaas ay tahay ay markaas wax walba bilowdeen
haddaba dhanka kale ninkan iyo sidoo kale shirkadiisan ayaa dhisay waqtigaas nidaam gooniya nidaamkaas oo inoogu talagaleen inuu la jaanqaado casriga cusub haddaba nidaamkan cusub ay ugu magac dareen magaca aaladiin waxay haddaba systemkan ayaa la sheegay inuu yahay system aan awoodiisa la qiyaasi karin sidoo kalena ku shaqeeyay in ka badan 5,000 oo computers kuwaasoo weliba xawaare aad u sarreeya leh asagoona systemkan awoodda badan ay shaqadiisu tahay sidii uu uga hortagi lahaa sidoo kalena uu u falanqayn lahaa khataraha ku imaan kara lacagaha la maalgashtay sidoo kale systemkan ayaa system maamula sidoo kalena la socda malaayiin ganacsi iyo sidoo kale macaamiil weliba si joogto ah maalin walba 24 saac asagoona softwarekan uu yahay mid meel walba leh sidoo kalena qabanaya shaqo walba oo looga baahan yahay dhanka kale softwarekan ayaan ahayn oo kaliya software u shaqeeya BlackRock asagoona ay isticmaalaan guud ahaan bangiyada waaweyn iyo sidoo kale shirkadaha ganacsiyada oo dhan haddaba systemka lagu magacaabo aaladiin ayaa ahaa system BlackRock u qabta shaqooyin aad xasaasi u ah asagoona sidoo kale siiyo xogo muhiim ah sidoo kalena ku saabsan bangiyada iyo sidoo kale dhanka siyaasadaba haddaba haddii aad isweydiinaysa meesha uu ka keenay systemkani xogahaas oo dhan jawaabta ayaa ah mid iska fudud oo ah in maadaama uu BlackRock yahay mid sheer ku ah kambani walba ha ahaadaan bangiyada waaweyn aaladaha miidiyaha iyo waxaasoo dhanba haddaba waxaa fudud in systemkan uu xog ka hayo guud ahaan kambaniyadaas ku xidhiidha BlackRock ha ogaadaan ama aysan ogaanine ayadoona dhanka kale systemkan lagu magacaabo aaladiin uu maamulo lacago kor dhaafaya 25 trilyan oo dollar sida yaataba laakiin awoodda BlackRock ayaa noqon doonta mid sii laba jibaaranta weliba markii uu dhacay shilkii dhaqaale ee ugu xumaa 2008 The NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. Stock market is now down 21%. This could be the most serious recession in decades. We cannot simply stand by and watch this industry collapse. Time, and it's not going to get better quickly. taariikhdu markaa 2008 waxaa dhacday in bangiyada iyo sidoo kale ganacsiyada waaweyn ay ku baraarugaan maalintoodii ugu xumeed ayadoona waqtigaas uu dhacay shilkii dhaqaale ee ugu xumaa heer madaxweynihii waqtigaas ee Bush uu ku dhawaaqay in loo baahan yahay lacag gaadhaya 2 trilyan oo dollar si isla markaas loo maareeyo shilkan dhaqaale sidoo kalena bangiyo badan loogu badbaadiyo haddaba arrinka la yaab kale ayaa in waxaasoo dhan ay la socdeen ninka lagu magacaabay Larry iyo sidoo kale kambanigiisa BlackRock haddaba maadaama uu Larry ka warqabay sidoo kalena uu sii ogaa inuu dhacayo shilkan dhaqaale ninkan ayaa mid si buuxda isku sii diyaariyay asagoona isla markaas sii ogaabay inuu yahay qofka kaliya loo baahanaya marka ay dhacdo arrintani maadaama ay gacantiisa ku jireen bangiyada ugu waaweyn iyo sidoo kale ganacsiyada ugu waaweynba waxay haataba kadib markii loo xil saaray BlackRock inay maamusho musiibadan dhaqaale ee 2008 waxaa dhacday in farta laga saaro kontraktiyo sidoo kalena uu ku maamuli karo dhammaan dakhligada bangiyo badan oo waqtigaas ah midoona ka dhigtay in Larry waqtigaas isku bedelba ninka ugu awoodda badan haddaba kadib markii ay BlackRock gacan weyn ka geystay maareynta qalalahaas waxaa dhacday in shirkaddan lagu aaminaba inay tahay shirkadda ugu khibradda badan xagga maareynta khataraha iyo sidoo kale hantida waaweynba ayadoona isla waqtigaas kadib shirkaddan BlackRock ayba isku bedeshay mid aan joogsi lahayn sidoo kalena ayba ku tiirsan yihiin dowladuhu dhanka kale haddii aan isla eegna sannadii 2008 ka hor BlackRock ayaa maamuleysay oo keliya qiyaas ahaantii lacag gaadhaysa 1.3 trilyan oo dollar halka maanta marka la joogo ay shirkaddan maamusho in ka badan 10 trilyan oo dollar taasoona ka dhigaysa shirkadda ugu weyn dunida ee maamusha hanti ayadoona ay la macaamulaan dowlado bangiyo shirkado iyo weliba hay-ado maaliyadeed oo caalamiya sidoo kalena waddan walba leh sidaas la mid markii uu dilaacay cudurkii loo yaqaanay coronavirus 2020 waxaa dhacday in isla sidii 2008 BlackRock loo xil saaray inay ka howlgasho mashruucan iyo sidii ay uga ilaalin lahayd in cudurkan uu hoos u dhac u keeno dhaqaalaha midaanoona keentay in kambaniga lagu magacaabo BlackRock uu bilaabay inuu sii fidiyo boqortooyadiisa weliba isagoo arrintaas ka faa'iideysanaya dhanka kale marka laga hadlayo awoodda BlackRock ma ahan oo keliya hantida ay hayso sidoo kale kambanigan ayaa leh awood aan innaba la qiyaasi karin ayadoona ay BlackRock leedahay saamiye aad u waaweyn kuwaasoo ugu jira shirkadaha ugu waaweyn adduunka haddaba BlackRock ayaa mid maalgashtay gebi ahaan kambaniyada iyo sidoo kale ganacsiyada ugu waaweyn dunida ayadoona markaad eegto dhammaan kambani walba oo aad maanta taqaana aad ka dhex helaysa magaca BlackRock tusaale ahaan kambaniyada ugu waaweyn ee uu kambanigan kontarool ayaa ah sida shirkadaha miidiyaha iyo warbaahinta ugu waaweyn caalamka sida shirkadaha kale ah Focus oo uu maamulo 18%, CBS 16%, Comcast oo ayaduna sidoo kale ay hoos yimaadaan shirkado badan sida NBC, MSNBC, CNB iyo xitaa Sky midaanoona oo ayadana maamulo 13%, sidoo kale ha ka reebin Disney 12%, iyo weliba kuwa kale oo aad u badan ayadoona BlackRock marka ay timaado dhanka maamulada miidiyaha ay aad muhiim ugu tahay sidoo kalena ay aad uga taxadaraan sidoo kale maamulada kambaniyadan ayaa BlackRock uga dhigan in kambaniyadan aysan kaligood gaari karin go'aan weliba ayagoona isla markaas la socodsiin Larry iyo sidoo kale maamulka BlackRock midaanoona dhab ahaantii uusan kambani walba samayn karin midaanoona dhab ahaantii ku cadaynaysa awoodda uu kambanigan leeyahay intaasoo keliya maaha sidoo kale kambanigan ayaa sidaas la mid ah shaarar kule kambaniyada teknolojiyada ugu waaweyn dunida
ha noqoto Apple, Google, Meta, Tesla iyo weliba kuwa kale oo aad u badan ayadoona listiga kambaniyadaas aan marnaba halkan lagu soo koobi karin dhanka kale marka ay timaado kontroolida media BlackRock ayaa maamusha in ka badan 90 media oo kala duwan waana sababta aadan weliga uga maqlin media waaweyn ayagoo ka hadlay kambanigan iyo waxa uu ku saabsan yahayba midaanuna dhabaantii aysan xitaa dawlado badan samayn karin xisaabtan ugu darso in media la kontrool wax sahlan maaha hadaba waxa soo awood oo la isku geeyay BlackRock ayaa si fudud ku maamusha dawladaha iyo sidoo kale siyaasiyiintaba ayadoona isla markaas xogahaas ay hayaan ay ku bedeli karaan go'aamada dawladaha waaweyn waliba si fudud ayadoona dhanka kale ninkan lagu magacaabo Larry markay timaado la kulanka madaxweynayaasha aysan ba agtiisa waxba ka ahayn sidaas ay tahay asagoo haba yaraatay wax siyaasadda shaqo ku lahayn mid kale ee ka sii yaabka badan ayaa in BlackRock aysan awoodeedu ka ekeen oo kaliya wadamada reer galbeedka ayadoona awoodda kambanigan ay ka baxsan tahay guud ahaan Mareykanka iyo sidoo kale Yurubba tusaalahaan kambanigan ayaa 2020 noqday kambanigii ugu horreeyay ee loo ogolaaday inuu dhex galo sidoo kalena uu la macaamulo China midaanuna ka dhigtay in BlackRock uu maamuli karo sidoo kalena uu maalgashan karo kambaniyada ku yaala wadanka China midaanuna keenaysa in BlackRock uu la shaqeyn karo sidoo kalena uu maalgelin karo kambaniyo blacklist si ugu jira wadamada Mareykanka tusaalahaan kambaniga BlackRock ayaa maalgashay kambani laga leeyahay wadanka China sidoo kalena lagu magacaabo Hikvision shirkadan oo ah shirkad technology sidoo kalena ku jirta shirkadaha ugu waaweyn caalamka ayadoona shirkadan ay ku takhasustay la socodka dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo sidoo kale nidaamka kormeerka ayadoona isla markaas adeegsanaysa kaamirooyinka CC kaamirada midaanuna ka dhigay BlackRock ay xitaa awood u leedahay inay maalgashan karto wadamada uu xifaaltankaada kala dhaxeeya Mareykanka iyo waliba sidoo kale shirkado ka baxsan kuwa reer galbeedka ayadoona waliba kambanigan uu isticmaalay kaliya ma lacagtiisa ee xitaa lacagaha kale ee la maalgashtay oo caadi ahaantii kambanigan BlackRock lacagaha tirada badan ma aha tiisa oo kaliya ee waa lacag ay leeyihiin shirkado bangiyo iyo sidoo kale shakhsiyaad asagoona kambanigan lacagahaas maamulo oo kaliya marka laga yimaado shareerkiisa sheekadu intaas oo kaliya kuma eka marka loo yimaado dhankaas wadamada reer galbeedka kambanigan ayaa mid marka si dambaysa si oomanaanay sidii uu la wareegi lahaa wax walba tusaalahaan kambanigan ayaa waqtiyadii dambe la wareegay guryaha real estate-ka si isla markaas uu kor u qaaday qiimayaashooda sidaas darteedna looga kareysto midaanuu la dhabaantii ku tusaysa heerka ay ka taagan tahay in kambanigan uu maamulo wax walba dhanka kale BlackRock ayaa marka si dambaysa si oomanaanaysa oo kaliya sidii ay u maamuli lahayd guud ahaan caalamka oo dhan ayadoona markaad u fiirsato ninka lagu magacaabo Larry Fink iyo sida uu ugu dhow yahay madaxda caalamka aad u malaynayso in arrinka loo balan qaaday xisaabtan ku darsay in ninkan uu ka soo jeedo Yahuuda ayadoona sida aan dhammaanteen aan ka warqabnaan ognahay qolyahaas iyo sida ay u aaminsan yihiin inay dadka wax dheeriyeen haddaba laga soo bilaabo taariikhda marka 2004 ilaa maanta kambanigan BlackRock ayaa la sheegay inay shaqaaleysiisay in ka badan 84 qofood kuwaas oo la sheegay inay yihiin xubno ka tirsan dawladda iyo sidoo kale bangiyada ayadoona sidaas la mid ay jiraan xubno waaweyn sidoo kalena ka tirsan dawladda kuwaas oo waqti xaadirkan hoos yimaada kambanigan sidoo kale ninkan lagu magacaabo Larry ayaa xubin muhiim ah sidoo kalena ku jira gudiyada ugu waaweyn ee WEF oo ah mid kamid ah ururada aan dawliga ahayn ee ugu weyn caalamka oo dhan ayadoona oo ururkan saameyn xooggan ku leeyahay siyaasadda caalamka oo dhan sidoo kalena isku soo aruriya dadweynaha ugu awoodda badan ayadoona la sheegay in ururkan uu yahay urur garab siiya shirkadaha ugu waaweyn sida BlackRock oo kale inay saameyn ku yeeshaan siyaasadda caalamka haddaba ugu dambeyntii kambaniga lagu magacaabo BlackRock ayaan lagu tilmaami karin inuu leeyahay wax walba laakiin xaqiiqada ayaa inuu waxyaabo badan kor ka maamulo waliba daa gadaashiisa ayadoona si walba aad iskugu dayda aadan marnaba qiyaasi karin awoodda dhabta ee kambanigan haddaba waxaasoo dhan oo la isku daray ayaa keenaysa su-aasha ah ma kula tahay in waxa aan ilaa yaraanteena aan maqli jirnay ee ah inay jiraan dadyo awood leh sidoo kalena kaba awood badan madaxda caalamka ma laga yaabaaba inuu yahay ninkan lagu magacaabo Larry Fink haddaba maxay kula tahay adiga sidoo kale sheekada ku saabsan kambaniga BlackRock ayaa la mid ah qisadii aan hore uga soo hadalnay Samsung iyo sida uu kambanigaas u maamulo wadanka South Korea oo dhan sida si la mid ah uu kambanigan u maamulo caalamka oo dhan haddaba haddaadan muuqaalkaas hore u soo daawan fadlan ha ilaawin inaad ka war doonto adigoo ku dhufanaya thumbnailka shaashadkaaga muuqanaya halkaas ayaa noo balana